maanta waxaan joognaa meesha loo yaqaano Naas Abaarsood ama buurta Naas Abaarsood. magaalada Hargeysa waxaanu ka baxnay xilli aroor ah anagoo kaxaysanay gaadhigeega. Naas Abaarsood waxaan u soconnay muddo 10 daqiiqo ah. isla markiiba waanu gaadhnay Naas Abaarsood. halkaa waxaan ku aragnay wax naga yaabiya dhagaxaan kala duwan kala nooc ah. aanu isnidhi qaarkood waa macdan halkay qaar madow yihiin qaar kalena ay caddaan yihiin. sidoo kale waxaanu aragnay dhir kala nooc ah oo kala jaad ah. qaarkood waanu garanay qaarkoodna waanu garan weynay. geedkan eega siduu uga dhex baxay ama uga dul baxay dhagaxaanta waaweyn. geedku halkaas ku yaalaa xididadiisi laakiin dhulkay ku taagan yihiin. dhagaxaanta waaweynna u haystaa. muddo ka bacdi dhagaxaantan waaweyn iyo quruxdan aad idiin muuqata aad arkaysaan waxa laga yaabaa inay baaba'do. sababtu waxa weeyaan halkan waxaa imaada nimanka guryaha dhisa ee iskurweynka wata iyagoo jajabinaya dhagaxaantan gubaya ka bacdi qaadaya guryaha ku dhisaya. taasina waxay keenaysaa inay dhagaxaantan iyo muuqaalkan iyo jawigan qurux badan aad arkaysaa inuu aanu sidan ahaan doonin maadaama oo dhagaxaantii la gurayo guryahana lagu dhisayo markaa deegaankiina halkaa uu ku baaba'ayo. nimankii dhagaxaanta jabinayay ma joogaan laakiin maalmaha kale haddaad timaadid waxaad arkaysaa iyagoo dhagaxaanta qaraacaya jabinaya gubaya. markaa meeshan sida qurux badan indhuhu ku raaxaysanayaan sidan ahaan mayso. halkan sidoo kale waxaa soo mara biyo aad u tiro badan baa soo mara. viewga qurux badan ee idin muuqda waxaas ka soo rogmada halkaa biyo aad u tiro badan. biyahaasoo dhanka waqooyiga magaalada Hargeysa u kacaya. halkani waxa u eg tahay Naasgeel. waxaan hoos joogaa buur weyn. buurtaasoo leh meel hoos geli karo lana harsan karo roobkana laga geli karo. sidoo kale waxay leedahay view aad u qurux badan oo dhammaan laagta iyo dooxa aad ka arkayso. waaw laagta mar kastood ku sii socoto waa mar kastood aragto waxyaabo qurux badan kana sii qurux badan wixii hore aad aragtay. halkan oo kale dhagax baa ka muuqda. dhagaxaasi dhexdaasu daloolaa dhinacyada kalena wuu iskaga yaalaa. meeshan maxaa ka qurux badan haddii aad timaadiin adiga iyo asxaabtaada ama adiga iyo familigaaga xaggan aad cunto ku samaysataan aad waqti ku qaadataan laakiin idinkoo iska ilaalinaya xilliga roobka soo da'ayo maadaama oo daad badan soo marayo. waaw ma axlaa. halkaa waxaa ka muuqda god xagga sare ah xagga laakiin waaw ku baxsada. hey halkaa waraaba jooga waan seeriynay. waa kow waa laba. waaw waraabaan aragnay maanta. waan aragnay maalintii hore waan arag laakiin maanta waan aragnay. halkan waxa weeyaan meesha ugu qurux badan markay noqoto viewga. waaw waaw waraabaan ka baqanino. waraabihan ka baqanina waan aragnay.
meesha waraaba ka horeeya meesha waxaa leedahay viewga aad ka qurux badan leh iyo dhirta kala duwan maadaama ay biyo badan soo maraan meeshuna dhagax tahay halkaa waxaa la arkayaa inay biyo fadhiistaan meeshu waa kayn waraabe iyo shabeel iyo harimacad meesha inay ku jiraan baa laga yaabaa mar kasta oo hore u socoto oo mar kasta oo meeshu jiq noqoto waxaa soo socda roob mahigaan ah inaad arkaysaan iyo in kale wallahu aclam viewgii ugu qurux badnaa baan kusii soconnaa halkaas waxa weeyaan viewga ugu qurux badan iyo in la arkayo magaalada Hargeysa ayaan soo eegi doonaa nimankii kale way iga hadheen halkaasay joogaan keligeyba halkan u soo kacay meesha wax bila aadan oo jooga ma jirto daanyeero iyo waraabayaal mooyaane wax kaloo bila aadan oo jooga ma jirto marka insha Allah halka horaan u socon doonaa iyo viewga ugu qurux badan ee meesha ka muuqda waaw ayaan tegi doonaa taayirka waxaa soo qaaday roobka soo qaaday halkaas ayaan mari doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan soo daawano viewga meel aan maro ayaa raadinaya waaw view qurux badan baa barta ka muuqda kaas waa jar hoose weeyaan keligii baa halkan u soo kacay nimankii kale aan wada soconnay way iga hadheen daanyeero ayay halkaa ku shiidayaan keligii baa dhankan u soo kacay laagtu ma dhammaanayso way soconaysaa mar kasta oo aad sii socoto ama mar kasta aad hore u socoto ood laagto sii hayso waa mar kasta ood arkayso meel aan cagtu ka yar tahay aan hore loo marin quruxna leh sida bartan oo kale uma eka halkan in ay dad soo mareen waaw masha Allah quruxda waa soo boodnay sidoo kale halkan oo kale biyo ku jira xayawaanadu inay ka cabaan baa laga yaabaa waaw iska ilaali waraabaha iska ilaali halkan aan koraya bismillah halkaas waa akhro والله meesha waa meel cajiib ah aad iyo aad qurux badan halkan aan koraya buurtan baan doonayaa inaan koro dooxa ku dhex taala aan arko viewga waaw halka waxaa waa buluug weeyaan buurta dhinacaasi dhankaas waa buluug dooxu halkaas ka ballaaranaya halkaa wixii ka dambeeyaa waxa weeyaan dooxu waa isku siman yahay inay laagtun baad arkaysaa laakiin buuro badan ma jiraan halkaa haddii loo socdo waa bacado muxuu ahaay halka baabuur baa maraya aan filaya hey
aan filayo in uu miyiga u baxayo wallahu aclam. laakiin halkaa marka buurtan laga wareego ama dhinaca la istaago ayaa halka Hargeysa laga arkaya. buurtan xagga ka wareegi karmayno waan daalina in badan baan soo lugeynay. asxaabta qaaliga ah waxaan qaadanay jawi qurux badan, meel qurux badan. waaw laagtan qurux badan baan daawanay. insha allah muuqaalka intaasaan ku joojin doonaa. waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. assalaamu calaykum.